sanadkan 2021 ayaa waxaa warbixin ay soo saareen Global Firepower oo ah wargeys ka faalooda arrimaha militariga dalalka caalamka ayaa waxaa lagu xusay liiska wadamada caalamka sida ay dhinaca militari ahaan u kala awood badan yihiin. Qaaradda Afrika oo ka kooban 54 dawladood ayaa laga soo qaatay 35 dal kuwaas oo ay ka mid noqotay Soomaaliya. Haddaba dalkeena Soomaaliya ayaa qaaradda Afrika marka laga soo tago waxa uu wadamada caalamka ka soo ciriirsaday kaalinta 136 iyada oo markaasi ay ka hooseeyaan laba dal. Dalalka caalamka sida ay u kala awood badan yihiin waxaa laga soo qaatay 138 dal. Dalka ugu horeeya ayaa waxa uu noqday dalka Mareykanka, waxa ku xiga Ruushka, China, India, Japan, South Korea, Faransa, UK, Brazil, Pakistan ayaa wadanka 10aad noqday. Balse waxaa xusid mudan in liiskan wadamada caalamka dalkeena Soomaaliya uu ka noqday wadanka 36 iyada oo ay ka hooseeyaan laba dal. Warbixintan uu soo saaray wargeyska Global Firepower ayaa waxaa markaasi wadamada qaaradda Afrika 10 dal ugu horeeya ay noqdeen. Kaalinta koowaad waxaa ku jira wadanka Masar ama Egypt, Algeria ayaa ku xigta, South Africa, Nigeria, Morocco, Ethiopia, Angola, Libya, Tunisia, Sudan ay noqdeen 10 dal ee ugu horeeya. Soomaaliya ayaa liiskan waxa ay ka gashay kaalinta 34 waxaana ka hooseeya dalka Liberia. Sida ay qoreen Global Firepower waxay sheegeen in Soomaaliya awood ahaan iyo ciidan ahaan haatan kobac badan ay sameynayso. Dadka Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen in lagu qiyaasay 12 milyan ku dhawaad. Tirada ciidanka ku biiri karta ayaa waxa ay sheegeen qiyaas ahaan in 24% ay noqon karaan dadka Soomaaliyeed. Tirada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee hadda shaqeynaya ayay ku qiyaaseen 20,000 oo askari. Sida warbixintan markaasi lagu xusay, waxay sheegeen markaasi taangiyada Soomaaliya haatan ay haystaan in ay gaarayaan 10 gawaarida gaashaaman ah, 30 madaafiicda la jiida ah, 10 qalabka lagu rakibo gantaalada. Waxay sheegeen in ciidanka badda Soomaaliya haatan ay haystaan 11 doomood kuwaasi oo kormeer joogto ah ku sameeya biyaha Soomaaliya. Miisaaniyadda loo qoondeeyay ciidanka Soomaaliya ayay sheegeen in ay haatan ka badan tahay 62 milyan oo dollar, taasi oo ay sheegeen in markii hore ee aad uga hooseysay haatanna aad markaasi ay u sareyso oo kobac badan uu muuqanayo. Waxaana arrintan ay muujinaysaa ama tusaale ay u tahay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu haatan soo kabanayo isla markaana horumar baaxad leh uu sameynayo.